kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinkugu talagalnay waa barnaamijkeennii ugu horeeyay maanta oo jimco aan idiin soo gudbinayno jimca mubaarak taariikhdu waa 9 bisha Janaayo sanadka 2026 qodobada barnaamijka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah fashil weyn oo Israa'iil ka soo gaaray qorshihii ay waday kaasoo ahaa in ay kala qaybiso Yemen isla markaana dowladda koonfurta laga dhisayo ay aqoonsato sida Somaliland si ay ula wareegto gacanka Cadan ilaa Bab al-Mandab haddaba arrinka ayaa fashiliyay warbixin la yaab leh oo telefishinka Al Jazeera uu ka diyaariyay arrinka ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa waxaa kale barnaamijka aan idinkugu haynaa aayatullaahiga Iiraan oo hadal kulul u jeediyay shacabka dalkaas xilli diyaaradaha rakaabka ee tagi jiray Iiraan ay joojiyeen duulimaadyadoodii sida diyaaradaha waddanka Turkiga haddaba xaaladda Iiraan oo soo kululaatay wararkii ugu dambeeyay ayaan iyana barnaamijka ku faahfaahinaynaa qaybaha dambena waxaan idinkugu hayaa Ruushka oo gantaal lala yaabay ku garaacay magaalada Kiev madaxweynaha Ukraine oo aflabadii qayliyay safaaradda Qatar ee magaalada Kiev oo la sheegay in dhibaato ay weeraradaasi ka soo gaareen haddaba sidee wax u socdaan caalamkan iswada garaacaya barnaamijka ayaynu ku faahfaahin doonaa inta aan ku jirno wixii warar ee soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada horeeyay maanta oo jimca mar kale jimca wanaagsan ama jimca mubaarak haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa xaaladda Iiraan oo sii xoogaysanaysa mudaharaadyada oo faraha ka sii baxaya haddaba aayatullaahiga oo hadal jeediyay laakiin marka hore waxaynu ka hadlaynaa Trump oo isaguna soo qoray sheeko ku saabsan magaalada labaad ee ugu weyn Iiraan oo hadda ay la wareegeen dadka mudaharaadka sameynaya waa magaalada labaad ee ugu weyn Iiraan ayuu Trump sheegay in dadka dibadbaxyada sameynaya ay magaalada qabsadeen oo maamulka magaalada iyaga ay gacanta ku hayaan haddaba aayatullaahiga Iiraan ayaa isaguna goordhow hadal u jeediyay shacabka Iiraan iyadoo xaaladdu ay u muuqato mid ka sii daraysa marba marka ka dambaysa haddaba marka aan idin tuso Al Jazeera ayaa khabar caajil goordhow soo qortay ama war degdega waxay leedahay murshidka ama aayatullaahiga Iiraan waxa uu sheegay in Mareykanka weli gacmihiisu ay ka qoyan yihiin dhiigga kumanaan dadka reer Iiraan ah haddaba marka waxa uu sheegay in Mareykanka oo dhiigga gacanta kula jira uu haddana maleegayo shirqoolo kale dagaalkii 12 maalmood ee lagu qaaday Iiraan ayuu wuxuu sheegay weli in ay markaa Iiraaniyiintu og yihiin dhibaatada iyo sida uu Mareykanka ku sameeyay dalkooda waxa uu sheegay in kuwa ka shaqaynaya mudaharaadka ee fowdada ka wada dalka Iiraan ay yihiin kuwa doonaya inay raali geliyaan waxa uu ku tilmaamay madaxweynaha Mareykanka si ay u kharibaan hantida wadankooda ee caamka ah waxaan ugu baaqayaa shacabka Iiraan inay midoobaan oo ay meel uga soo wada jeestaan si ay uga guuleystaan cadawgooda waxa uu sheegay madaxweynaha Mareykanka in uu joojiyo mushkiladda iyo dhibaatada uu ka wado gudaha dalka Iiraan marnaba ma saamixi doonto kuwa calooshood u shaqaystayaasha kuwaasoo markaa iyagu la shaqaysta qolooyinka ajaanibka ah sida uu yiri wadaadka wadaadka marka wuxuu leeyahay ma saamaxayno kuwan mudaharaadyada abaabulaya ee Iiraaniyiinta ah ee calooshood u shaqaystayaasha ee la shaqaynaya si ay u raali geliyaan Trump ma yeelayno marka waxay u muuqataa marka fariin culus oo sheekha waayadan ma hadlin sidii mudaharaadyada iyo waxa kan u socdeen hadalkan oo kala ma jeedin laakiin hadda marka waxay u muuqataa in amar la siiyay ciidanka oo ah
in laga hortago mudaharaadyada xoog in lagu joojiyo oo fiirsada xoog in lagu joojiyo mudaharaadyada ayaa meesha laga fahmayaa le haddaba dhanka kale waxaa la sheegayaa in diyaaradda Turkish Airline iyo diyaaradda kale la Pegasus ee Turkidu ay leeyihiin duulimaadyadii ay ku tagayeen iyaguna ay joojiyeen Iran saacadihii la soo dhaafay cabsi laga qabo qalalaasaha inuu saameyn weyn ku yeesho eraboorradii ay tagayeen qaarkood haddaba marka haddaan idin tuso telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu sheegay diyaaradda Turkish Airline inay joojisay safaradii ay ku tagi lahayd Tehran iyadoo ka bixi lahayd Istanbul waxaa sidoo kale iyana joojiyey safaradaas diyaaradda kale ee Turkishku leeyahay ee la yiraahdo Pegasus waxaa sidoo kale iyana la sheegay diyaaradaha Iran qaarkood inay iyaguna ay joojiyeen safarada oo markaa cabsi laga qabo in dhibaato loo geysto diyaaradaha iyo rakaabka iyo eraboorada inay saameyn ku yeeshaan way halkaas isaguna hawshaas taagan laakiin Turkidu waxay u ogolaadeen dadka Iiraaniyiinta ee degdega ah ee raba dalkooda inay tagaan waxay leeyihiin Turkiga iyo Iiraan xuduuday leeyihiin xuduudda waxaa ku taala 3 goobood oo dadku ay iskaga gudbaan iyo ganacsiga iyo waxaas marka halka cidii rabta gobolada dhanka jira inay halka ka gali karaan oo ay marka nimankan Turkida ay u sahlayaan inta xiisadu ka dhamaanayso marka sheekadaas iyadoo halkaas mareen way taas marka waa qayb iyadoo marka mudaharaad socdaan oo Mareykanka Trump iyo waa la qabsaday Iiraan ay leeyihiin Iiraan xisaabta maba qortaba Iiraan waxa kan mudaharaadyada nimankan Ibraahinta reer galbeedka iyo ay weyneynayaan waa saasay Trump uu soo qorayo dadka lagu cabsi gelinayaa laakiin waxa leeyahay Iiraan shaqadeeda kale wadataa waxa leedahay mudaharaadyada annaga waa dadkeen waa naqaanay laakiin maalinkaana soo aadid talaabadan qaadi doono ayaan ku sheegaynaa maraakiibta dagaalka ee Iiraan iyo kuwa Shiinaha ayaa waxay ku sugan yihiin Koonfur Afrika saldhig ku yaala waxay sugayaan kuwa Ruush ah halkaas waxay ku sameyn doonaan dhoolatus shaqadooda wataa badhibakan Mareykan waxa leeyahay waxa soo qor warbaahintaada ha buunbuuniso mudaharaadyada waxan wax weyn ma laakiin waxa ku sheegay leeyahay annagu maalinka isfarasaarno waa la iswaraysanaya tababarkooda iyo hawshooda kale ay ciidamada Iiraan hawshooda shaqadooda kale wataan dhoolatuska haddaba markaan tuso jirirada la yiraahdo ra'yul yawm waxa leedahay maraakiib dagaal oo ay leeyihiin Shiinaha iyo Iiraan ayaa waxay ku sugan yihiin saldhig dhinaca badda ah oo ku yaala dhanka Koonfur Afrika si ay halka ugu sameeyaan dhoolatus iyo tababaro military iyadoo sidoo kalena ay Ruushka halka tagi doonaan iyaguna oo ay ka qayb qaadan doonaan marka niman shaqadoodii wato waa dada waxa ka dhaadhacsan dawladii dhacaysa Iiraan kan maxaa dhacaya meeshan waxay leeyihiin reer galbeedka way buunbuuninayaan mudaharaadya sameeyay nin madaxweyne Mareykan inuu soo qoro magaalo dhan waxa qabsaday dadka mudaharaadka sameynaya waxay leeyihiin waxaasu wax ka badbadisa waay si u qabsanayaan magaalo dad mudaharaad sameynaya marka waxay leeyihiin waxaan waa la kicin waay dadkii la kicinayaa waa propaganda waay macnaha lagu kicinayaa Iiraan laakiin dadka wax falanqeynaya waxay leeyihiin waxaasu Iiraan ma qortay leeyahay ayatullah hadda haduu hadlay mudaharaadyada 2 maalmood 3 maalmood la soo afjaray bas waay asaga laga warsugaayo odaga marka sheekadooda kala ciidankooda iyo hawshooda kalena way wataan marka xaalku halkaas ayaa marka Iiraan wararkii ugu waaweynaa aynu kaga gudbaynaa oo ku dhaafaynaa waxa noo soo socda fashilka ku dhacay Israa'iil qorshihii ay la maaganayd Bab al-Mandab iyo gacanka cadan haddaba sheeko la yaab leh oo arrinka laga diyaariyay way noo soo socotaa laakiin markan waxaan u gudbaynaa Ukraine haddaba Ruushku waxa leeyahay maanta Ukraine wuxuu ku garaacay mid kamida gantaalaha jugta culus waxa leeyahay dhulka gariirale dhulka midal oo ku dhacday nimankan lagu dhuftay haddaba marka wararkii ugu dambeeyay
sheekada laga qoray haddaan idinla wadaago. telefishinka alcarabiya ayaa wuxuu qoray saaruuq la yidhaahdo orshnik ayay Moscow waxay ku garaacdaan leeyahay ku bartilmaameedsatay dalka Ukraine iyadoo kaga jawaabaysa markii dhawaan Ruushku ay sheegeen in diyaarado drone lagu soo weeraray xarunta uu degan yahay madaxweynaha Ruushka Putin. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa Jimcaha maanta waxay sheegtay in ciidamada Ruushka ay qaadeen weerar culus iyagoo isticmaalaya gantaalka mida gantaalaha ugu culus caalamka ee la yiraahdo Orshnik kaasoo la sheegay inay ku garaaceen goobaha muhiimka ah ee Ukraine. waxaa sidoo kale weerarka ka mid ahaa diyaarado drones ah oo halkaa lagu duqeeyey oo markaa iyaguna lagu garaacay. marka waxaa leeyahay wararka dhimashada ilaa hadda tafaasiil badan lagama hayo, inkastoo markii duqeyntu ay dhacday ay sheegeen Ukrainianku in 4 qof ay dhinteen, dad kalena loo malaynayo inay iyaguna soo bixi doonaan oo khasaaraha uu intaa ka badan doono. haddaba marka sheekada la yaab kale waxa waaye Ruushku alaabtan markasta ma isticmaalo. marka lagu soo shaqajaamo oo Ukrainianku ay wax khatara sameeyaan ayuu inta la soo baxo ku dhuftaa, markaas dhulka dhan gariira cadaadkooda baxay ma iska joogaan ayaga baxaa wareerinay. marka dhawaana waxaa diyaarado drone lagu weeraray mid ka mid ah xarumaha uu dago ninka la yiraahdo Putin, inkastoo diyaaradaha la soo riday oo aysan xarunta waxba gaarsiin, laakiin Ruushku waxay yiraahdeen gurigii Putin uu deganaa ma bilowday inaad baaratay diyaarado ku soo aadaan. hal gantaala lagu dhufto maanta dhulka dhanaa gariir cabaadkoodii abaxay. haddii 10 kaas la mida ay ku dhiceleeda lagu leeyahay Kiev waa loo kala tagi lahaa, salaani kala taga waayo. ninka Ruushka marka waxay leeyihiin faqraqayaashu wax badan oo xeerinaya wuu turaya nimanka, sababtoo ah hal gantaal haddii laga qayliyay maxaa yaala. haddaba marka ninkii Zelensky si duqeyntan iyo culayskan looga qaado afku qayli wuxuu yiri war annaga waxa naga daran safaaradii Qatar aajug culus gaartay. Qatar waa saaxiib waxay ka shaqaysay maxaabiis isdhaafsiga annaga iyo Ruushka, xataa Ruushka uma turaay diblomaasiyiinta intaas wuxuu isleeyahay ku dabagamo Qatar. haddaba madaxweynaha waddanka Ukraine Zelensky wuxuu sheegay diyaarad Ruushku leeyahay oo drones ah inay khasaare gaarsiisay dhismaha safaaradda Qatar weerarkii lagu soo qaaday Kiev. war annaga waxaana gaaray waaba la yaabay, laakiin dadka martida wuxuu leeyahay xataa jugti gaartay. intaas marka wuxuu ka wada leeyahay in culayska laga yareeyo oo macnaha dawladahan ay hadlaan ay yiraahdaan Ruushka oo tartiib oo sidee wax u wadaa maarinka qabooji in la yiraahdo. marka hawshaas iyaduna halkaas ay maraysaa. qadar xayisiisa kadib waxaan u gudbaynaa fashilka la sheegay inuu ku dhacay Netanyahu qorshe uu la maaganaa Bab al-Mandab iyo gacanka cadan si uu u hareereeyo Xuutiyiinta, si uu aqoonsado dawladda ka dhalan lahayd koonfurta Yemen isagoo hore u soo aqoonsaday Somaliland. haddaba xaaladaas iyo wararkii ugu dambeeyay jasiira ay qortay way noo soo socdaan maaganaa Yemen oo laga fashiliyay. haddaba qorshahaas muxuu ahaa? qorshahaas wuxuu ahaa sida Al-Jazeera ay qortay in koonfurta Yemen la gooyo dawlad lagu dhawaaqo. ninka la yiraahdo Aydruus Az-Zubaydi iyo Imaaraad inay hawsha markay ku dhawaaqaan oo ay qabsadaan Hadramaut iyo deegaanada kale ku dhow xuduudka Sacuudiga in dawlad lagu dhawaaqo Israa'iilna ay hore ka aqoonsato. sheekadaasu marka waalida ah ee meesha ka socotay waxaa ka horeeyay maalmo ka hor in Israa'iil ay ku dhawaaqday inay aqoonsatay Somaliland oo ay dawlad u aqoonsatay. arinkaasu iyo kan waxay rabeen inay sharqiga iyo qarbiga ka go'doomiyaan Xuutiyiinta iyagoo isticmaalaya Bab al-Mandab iyo meesha la yiraahdo Khaliij Cadan oo gacanka cadan meesha la leeyahay. halkaa inay saas inta isu soo wareejiyaan dhulkana ay markaa u isticmaalaan dawladdan iyaga markaa ay wateen oo ay goyn lahaayeen.
khatartaasu marka waxay saameyn lahayd sacuudiga iyo meel kasta iyo sacuudiga xuduudkiisa israa'iiliyiinta macnaha soo degi lahayd yaman israa'iil wadato hadday xuduudka soo degto iyadaa joogto waayo wax walbay meesha keensan kartaa sheekadii marka waxaa ku fahmay sacuudigii isla markii sacuudigu waxay duqeyn ku bilaabeen hubkii israa'iil iyo imaaraadku ay kasoo dejinayeen mukalla kaasoo qorshaha ugu weyn lagu fulin lahaa hubkii dekada inta ugu tagtay dukum daakum ka dhigeen sacuudiga kadibna meel kasta inta la xiray ciidankii sacuudiga iyo dowladda taageersanaa oo culays la soo saaray la soo jabiyeyna waa la hubeeyey imaaraadkan 4 saac meesha uga baxa leeyahay ka carar meesha markaasaa nimankii jugta laga geliyay ninkii Netanyahu madaxa u dhabar gacmaha ku haysta qorshihii qayb badan ayaa ka fashilantay nimankii waa laga adkaaday ilaa magaaladii cadan ilaa dhulkaan oo dhan hadda waxa isku fidiyay ciidankii dawladda cid kasto iyagu raad la lahaydna waa la baadi goobaya waa la raadinaya ninkii iyaga ay wateen ay duruusa Zubaydigina waa carrawaatii la isku haysto lahaa Soomaaliya galay halkaas ka sii baxay kadib imaaraadka qaadeen mawjida marka sheekada waalida marka ka socotay qorshihii ay dageen imaaraadka Israa'iil waa fashilantay leeyihiin wakan Al-Jazeera hadaba markaan idin tuso xogta oo faahfaahsan ciwaankeeda hadaan idin tuso hadaba Al-Jazeera waxay qortay warbixin ay leedahay sababta ay u khasaartay Israa'iil oo ay ugu fashilantay qaybintii Yaman ayaa yiraahdaa maqaal dheer waay maqaalkaas marka aad u tafaasiilinay oo aad uga hadlay oo Al-Jazeera iyo ay ka diyaariyeen sheekadan qaabka marka nimankan ay u fashilmeen kaartay wateen inay Yaman kala jaraan Soomaaliya kala jaraan xuuti halka uga yimaadaan Sacuudiga halka uga keenaan meel kasta oo nimanku imtixaansana marka waxa leeyahay hawshan waxa ka shaqeynayay nimanka Yamaniyiinta ay duruus oo gadaal ay ka taageen imaaraadkana ay gadaal ka taagnaayeen Israa'iil shaqo weyn marka meesha Ilaahay ku fashiliyay hadaba barnaamijkayga qodobkaas ayaa ugu dambeeyay marka la jimco wanaagsan fakarkiina aragtidiina waa muhiim noo soo qora wixii aragtiya oo aad haysaan arimahan ku saabsan like gareeya oo share gareeya barnaamijka asxaabay meel kastoo aad joogtaan haddaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube ka Facebook-na follow garee nabadgelyo